kulanti wanaagsan ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinkeenii tixanaha inoo ahaa oo mar waliba aynu halkan idinkula wadaagi jirnay. Sidoo kale maanta waxaynu idinla dabaaldegaynaa maalinta Ciidul Adha oo ah maalintii labaad. Waxaana ka cudur daaranaynaa in shalay aynu idin soo dhihi weynay Ciidul Adha wanaagsan. Laakiin maanta ayaynu si jumla ah ciid wanaagsan idin leenahay. ciwaanka sheekadeena maanta waa runtu waa badbaado. Wiil raaga la oran jiray oo agoon ahaa ayaa aabihii inta aanu dhiman kula sii dardaarmay inuu weligii runta sheego, xitaa haddii uu ku dhimanayo. Maalin ayaa raage oo safar ah aadna u haraadani ku soo baxay ceel ay biyo ku jiraan. Ceelka dadka deegaanka kuma cabaan oo jin dadka laaya ayaa deganaa. Raagase ma uusan ogeyn. Markii uu wiilkii ceelka ku daadegay ee uu damcay inuu biyihii cabo ayuu jinkii istusay. Waa cirfiid aragtidiisa laga naxayo. Cirfiidkii waxaa ag taagneed gabar aad u qurux badan. Raage oo naxdin awgeed haraadkiiba ka ba'ay ayuu cirfiidkii la hadlay oo cod argagax leh ayuu wuxuu ku yiri, "Waryaa midkaan yarow, aniga iyo gabadhan midkee ayaa qurux badan?" Raage oo baqdin gariiraya ayaa xasuustay dardaarankii aabihii. Dabadeedna asaga oo is adkaynaya ayaa waxa uu yiri, "Haddii adiga laga cabsanayo, adiga ayaa qurux badan. Haddii Ilaahay laga baqayana, iyada ayaa qurux badan." Cirfiidkii inta uu aad u carooday oo giir iska kiciyay ayuu mar labaad ku yiri, "War sheeg aniga iyo gabadha kee qurux badan." Raage ayaa haddana ugu warceliyay, "Haddii adiga laga cabsanayo, adiga ayaa qurux badan. Laakiin haddii Allaha sareeyo ee subxaanahu wa ta'ala laga baqayo, iyada ayaa qurux badan." Cirfiidkii oo aan weligii arag cid runta u sheegta ayaa la yaabay wiilkan, dhiiranaantiisa iyo sida uu runta ula soo taagan yahay. Markaas ayuu si qabow waxa uu u yiri, "Run ayaad sheegtay. Waxaa lafo ceelka dushiisa saaran. Been dad sheega ay ahaayeen. Adiga waxaa ku badbaadisay runtaada ee biyaha cab oo ka dhaanso isla markaana iska bax. Waa mahadsantahay," ayuu ku yiri cirfiidkii. Waxaana erinkaas uu noqday faa'iidada runta oo ilaa iyo haatan tusaalo loo soo qaato. Runtu waa badbaado. Waa tan horay ugu bilowna sheekadeennii maanta oo xiise gooniya lahaydna waa inaga intaa. boggaan falow inuu dhaha muuqaalkaana share gareeya saaxiibayaal soo dhawaada mahadsanidin.